madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa maanta ku gudoomiyay qasriga madaxtooyada howlaha shir muhiim ah oo loo qoondeeyay dadaalada horumarineed ee dalka. Ujeedada guud ee shirkaasi ee ay ka qayb qaateen wasiirada iyo mas'uuliyiinta dawladda iyo waaxyaha gaarka ee qaabilsan waaxyaha horumarineed ayaan ahayn in la ogaado dhibaatooyinka iyo caqabadaha hor yuurara horumarka waara, balse ujeedada la iskugu yeeray mas'uuliyiintaasi ayaa waxay ahayd in lagu baraarujiyo in ay qabtaan shaqo waxtar leh isla mar ahaantaana ay caadaystaan in ay ka miro dhaliyaan hawlgalladaasi loo igmaday. Madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa waxa uu faray dhammaan mas'uuliyiinta shirkaasi u joogay iyo dhammaan hawlgalladooda ay noqdaan kuwo ugu horeynta joogto ah isla mar ahaantaana noqdo kuwo waxtar leh. waxaanan rabaa ayaa uu ku yidhi madaxweynuhu in aad muujisaan wada jirkiina iyo wada shaqayntiina, waana in ay jirto isku duwid u dhaxaysa wasaaradaha kala duwan ee dawladda iyo sida kuwa gaarka loo leeyahay ee intuba qaabilsan horumarka. Shirkani muhiimka ah ee uu gudoomiyay madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxa uu la xiriiraa shirarka caadiga ah ee uu la qaato mas'uuliyiinta maamulka sare ee dawladda si ay uga wada xaajoodaan isla mar ahaantaana ay isla eegaan dib u habeynta daruuriga ah ee suuragelinaysa tababarinta dhaqaale bulsho ee dalka. waxaana kulankaasi u joogay wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda, wasiirka miisaaniyadda, wasiirka ganacsiga, wasiirka gaadiidka iyo qalabaynta, wasiirka shaqada iyo dib u habeynta maamulka, wasiirka garsoorka, sidoo kale waxa uu joogay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda. madaxweynaha oo shirkaasi ka hadlay ayaa waxa uu yidhi waa maxay sababta aan iskugu yeedhay ee aan keliya ugu yeedhi waayey wasiirada kale. waa sabab quraata, taasina waxa ay tahay horumarka dalka ugu horeyn. marka xigta barnaamijka aynu aanba qaadnay ee ku saabsan tartangelinta dalkeena iyo sahankiisa dhinaca horumarka iyo weliba la dagaalankiisa ah in dalka laga saaro dhibaatada. haddii xubnaha xukuumaddu ay isfahan waa u dhex yimaado oo nin waliba uu goonidiisa uu qiblad u gaara samaysto oo uu gooni u socod noqdo, lama gaari karo, lamana heli karo mashaariic iswaafaqsan oo aan dunida kula tartan galno. isku duwid la'aantaasi iyo wada shaqayn la'aantaasi ayaanan suuragelinayn in aynu gaadhno hadafkeena ah horumar waara. sidaasi darteed waa in qof waliba uu howlgalo si aynu hore u dhigno mashruuca doing business, waana in qof waliba halku doonaha joogay in uu ka qayb qaato mashruucaasi isla mar ahaantaana waa in qof waliba uu qaato qaybta ka khusaysa mashruucaasi. waxaanan isku waafaqnay in dhabbadani ay tahay midda ugu wanaagsan ee ay qaateen wadamada kale, waxaana sidaasi ka dhalanaysa aaminaada, waayo waxaa jira dal iyo shicibkiisa oo go'aansaday inay u howlgalaan dhabbada horumarkiisa isla mar ahaantaana aaminsan haddii uuna jirin howlgal mashruucani ayaa noqonaya mid isagu ku harhaya oo keliya waraaqaha uu ku qoran yahay. sidaasi darteed waxaan danaynayaa howlgalkiina iyo ka qaybgalkiina iyo rabitaankiina ah in qof waliba uu guto hawsha loo igmaday. madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa waxa uu maanta qasriga madaxtooyada ku qaabilay wafdi guddiga nabadda iyo amniga ee midowga Afrika. wafdigaasi ayaa waxaa horkacayay komisarka guddiga nabadda iyo amniga ee midowga Afrika. kulankaasi ayaa waxaa u joogay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ahna afhayeenka xukuumadda mudane Maxamuud Cali Yuusuf iyo danjiraha Jabuuti u fadhiyay Itoobiya ahna wakiilka joogtada ah ee Jabuuti u qaabilsan midowga Afrika Mohamed Idris Farax. waxaana kulankaasi lagu soo qaaday habkii iyo nidaamkii lagu xoojin lahaa korna loogu qaadi lahaa nabadda iyo amniga wadamada xubinta ka ah midowga Afrika. sidoo kale waxa ay isla soo qaadeen gudadaalida iyo hore u marinta nabadda iyo amniga wadamada xubinta ka ah midowga Afrika. sidoo kale waxa ay isla soo qaadeen mawduucyo dhowr ah oo ay ka mid yihiin ilaalinta xuquuqda aadamaha, faragelinta joojinta colaadaha iyo taageerada dadka barakacay iyo qaxootiga. xubnaha guddigaasi ayaa waxa ay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele ku hambalyeeyeen sida wanaagsan ee uu mar waliba ugu dadaalo hore u dhigga amniga iyo nabadda Afrika. waxaana xusid mudan in jamhuuriyadda Jabuuti ay door muhiim ah ay ka qaadato dadaalada beesha caalamka ee kor loogu qaadayo xasilinta iyo nabadgelyada degmada. madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ugu horeyn soo dhaweyn wanaagsan u rajeeyay wafdigaasi guddiga golaha amniga iyo nabadda ee midowga Afrika.
waxaana intaasi kadib ay ka wada sheekaysteen howlgallada kala gedisan ee guddiga ayaa ugu horeynba madaxweynaha u soo bandhigay howlgallada kala gedisan ee uu qabto. guddigaasi ayaa waxaa sidoo kale uu ku ammaanay jamhuuriyadda Jabuuti taageerada ay mar waliba u muujiso walaalaha Soomaaliyeed gaar ahaan ku dadaalkeega dhinaca nabadda, xasilinta nabadda iyo amniga dalka Soomaaliya. shirkaasi ayaa isagu jawi wanaagsan ku dhacay waxaana madaxweynaha iyo waftigaasi ay isla soo qaadeen dhowr qodob oo iyagu ku saabsan nabadda iyo ammaanka wadamada Afrika amba wadamada xubinta ka midowga Afrika iyo habkii iyo nidaamkii loo sii horumarin lahaa intaba. waftigaasi iyagu ayaa aad u soo dhaweeyay la kulanka madaxweynaha waxaana ay u sheegeen in ay dadaalkooga halkaasi ay ka sii amba qaadi doonaan oo ay sii wadi doonaan isla mar ahaantana hadafkii ay ka lahaayeen ay gaarsiin doonaan. kulankaasi ayaa waxaa ka qayb qaatay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah hafayeenka xukuumadda mudane Maxamuud Cali Yuusuf, danjiraha Jabuuti u fadhiya Ethiopia ahna wakiilka joogtada ah ee Jabuuti u qaabilsan midowga Afrika. mas'uuliyiintaasi midowga Afrika ayaa iyagu aad u soo dhaweeyay la kulanka madaxweynaha jamhuuriyadda. geestooda gudoomiyaha guddiga nabadda iyo amniga midowga Afrika iyo komisarka oo kulankaasi kadib ay wareysi la yeelanayeen waxa ay tilmaameen inay ku faraxsan yihiin la kulanka madaxweynaha jamhuuriyadda. Maka Cabdi ayaa la soo turjuntay hadaladoodii. wada ogsoontihiin shirkii soddonaad ayaa waxaa lagu doortay xubno golo kaas oo lagu soo qaaday amniga iyo nabadda inta ayna bilaabin howlahooga shaqo ayaa waxay qabteen aqoon kororsi ku saabsan amniga, nabadda iyo deganaanshaha gobolka. waana socdaalkeega Jabuuti aynu ku soo gaarnay si aynu isku dhaafsano xubnaha cusub habkooga shaqo iyo howlaha dejinta amniga gobolka sida protocolku uu ku xusan. mas'uul kale oo isagoo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay isaguna in madaxweynaha jamhuuriyadda ay ka wada hadleen si markaasi aynu u gaarsiino budi tilmaamooyinka muhiimka ah ee ku saabsan horodhiga amniga iyo deganaanshaha. aniga oo ka faa'iideysanaya fursadan waxaan uga mahadcelinayaa dadaalkiisa joogtada ah isagoo marnaba ka daalin oo ku hawlan had iyo jeer ka shaqeynta nabadda isagoo gaarsiiyay ummadda Soomaaliyeed ciidan ka howlgala dib u soo celinta nabadda qaranka dalkaasi. waxaan ka faa'iideysanayaa dhammaan falanqaynta kala duwan ee uu ka bixiyay madaxweynaha jamhuuriyadda howlaha kulankani. aad ayaan uga mahadcelinayaa buudi sidoo kale soo dhaweynta wanaagsan ee aynu kala kulannay. madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Gile waxa uu maanta sidoo kale qasriga madaxtooyada ku qaabilay wafdiga guddiga maamul wanaagga iyo dhaqaalaha ee MAEP. wafdigaasi ayaa waxaa horkacisay Marwo Fatuuxi waxaana uu joogay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ahna afhayeenka xukuumadda mudane Maxamuud Cali Yuusuf. waxaana kulankaasi lagu soo qaaday howlgallada kala gedisan ee MAEP uu fuliyo iyo sidii loo sii horumarin lahaa korna loogu sii qaadi lahaa. wafdigaasi MAEP ayaa waxay sheegeen in ay ku dadaali doonaan fulinta howlgalladaasi. sidoo kale wafdigaasi ayaa waxay u soo bandhigeen howlaha kala duwan ee MAEP uu fuliyo madaxweynaha jamhuuriyadda. madaxweynaha ayaa ugu horeynba wafdigaasi soo dhaweyn wanaagsan u rajeeyay waxaana intaasi kadib ay isla soo qaadeen howlaha kala gedisan ee guddiga MAEP uu fuliyo. waxaa sidoo kale ay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo xukuumaddiisa ku hambalyeeyeen sida wanaagsan ee ay u tixgeliyeen nidaamyada MAEP uu soo saaray. waxaa kulankaasina ka qayb qaatay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah afhayeenka xukuumadda mudane Maxamuud Cali Yuusuf. oo kulankaasi uu jawi wanaagsan ku dhacay ayaa waxaa khabiirada MAEP ay u soo bandhigeen madaxweynaha jamhuuriyadda howlgallada kala duwan iyo arrimaha ay qabtaan intaba. kulankaasi kadib waxaaynu wareysi la yeelanay wakiilka MAEP iyo wakiilka MAEP ee Jabuuti waxaana ay sheegeen in madaxweynaha jamhuuriyadda uu taageerayo howlgallada MAEP. mar kale iyo Maka Cabdi. wakiilka MAEP ee kulankaasi kadib ayaa waxaanu wareysi la yeelanay kulanka madaxweynaha jamhuuriyadda oo ahaa mid dib la isku xasuusinayay sida ay uga go'an tahay madaxweynaha jamhuuriyadda howlahani. waxaana uu tilmaamay dhinacyada oo walaaca ka muujiyay isagoo waliba soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee markaasi aynu suuro gelinay. mas'uul kale oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in madaxweynuhu uu ku raacsan yahay MAEP isagoo oo si rasmi ah u dhaqaajiyay tallaabooyinka ay wadaan. howlaha guud ayaa iyagu kuwa aynu dhamaystirnay waxaynu ku rajo weynahayna xoojinta maamulka dalkeena.